هاي walaalyaal waa idin salaanay waxaan ku salaameynaa magaca rabbigeena iyo badbaadiyeena Ciise Masiix soo dhawaada oo ku soo dhawaada jidka jannada waa anigoo ah Shaani Gaabo iyo ninkeyga Shiina Gaabo soo dhawaab Shiina mahadsanid Shaaniya rabbiga ha ku barakeeyo walaalaheena daawanayna rabbiga ha barakeeyo waa maasintiin walaalaheena waxaan idin wadnaa casharo ku saabsan qisooyinkii nabiyada anagoo idinka dhex tusayna Ciise Masiix waxa way qiso walba aan ka sheekayn doono oo nabiyada ku saabsan waxaan ka dhex arki doonaa ama ka dhex tusi doonaa ama ka dhex arki doontaanba Ciise Masiix ereyga Ilaah marka intaan bilaabin ka hor waxaan idinka codsanayaa marka hore waan idinka mahadcelinayaa daawashana daawataan mar walba waan idinka codsanayaa inaad share gareysaan fiidiyoyadan iyo fiidiyoganba waxaan idinka codsanayaa inaad adana subscribe ku sameysaan YouTube-keena jidka jannada iyo YouTube-keena Shanaaya ama Shaaniya iyo Shiina Gaabo waan ku mahadsantiin mar walba sida baraha bulshada noola socotaan jidka jannada oo ah Facebook-geena iyo Shaaniya iyo Shiina Gaabo oo aan ku leenahay profile anaga noo qaas ah waa ku mahadsantiin taasna rabbiga idin barakay waa idin jecelnahay ka sii wada meesha iyo xiriirkeena wanaagsan aad baa u mahadsantiin waan u duceynayaa kadibna waxaan u gudagalaynaa qisadan aan kaga sheekaynayno nabiyada mid kamid ah aan duceysano أبواب قدوس وأدام هذا ما تسكله كل ما دعلنا وعكا ما دعلنا وقتها ونكسن ربي وأدام هذا ما تسكله معلوم والبي وقت البعض نسيي وحن هسن إن ذيك إيمان ربي وحن سوين إن ذيك إيمان دونان ربي وحن كبريا يا دت كنا مقلع ينادي سنة وقتها الحاضر كربي وقلبي ذا وتعب ديجوه هذيك فر كوي وحكو فهم وحن كبرتها كم من البدبادة ربي وكنك ربي تدور بنا ديجي سنة بركته أنت سوحن كبريا مع عسيد كن بدباديه هنا عيسى مسيح آمين 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 ومحيهت wax ilaah lagu mahadiyo in aan ka sheekan karno qisooyinkii oo dhan iyo nabiyadii oo dhan waayo kitaabka uu nagu qoran yahay anaga hadana masiixiin ma aaminsan ilaah ereygiisa wuxuu noqday wuu dhacay ama wuu duqoobay oo nabi kala yimid marka hadana waa laga tagay hadana nabi kala yimid hadana kii hore laga tagay ma aaminsan anaga waxaan aaminsanahay kitaabka quduuska complete la soo isku dhigan bilowga ilaa dhamaadki ilaa wixii ugu horeeyay wixii ugu dambeeyay because kitaabka waxa ku qoran ereyga ilaah weligiis wuu nool yahay mana dhamaan doon cirka dhulku way dhamaanayaan laakiin hadalada ilaah ma dhamaan doon marka tawreedka iyo sabuurka iyo injiilka ayaan aaminsanahay oo loo kala yaqaan أحدي هراء أحدي دمبة أما أحدي عصب وإنجيل ككلية اسم مسيح كتاب كيس أحدي هراء وحوى التوراة كي يسبور كي وأحدي ذو إله الدكتي نبي ذي سمركم نبي ذي سيد لوجد أحد أركاي مسيحة أيانو ما أنت أنو إسراء فلقينا وحالقيها بين استراحة اسم مسيح وقتي بلوجي ما بجوجينه سيالوغا دخ arki karaa nabiyadii marka waxaan shiino waxaan ka bilaabaynaa qisadii aadam iyo xaawo waa bilowgii bini aadamka dhanba marka laga matigi karo waa in laga bilaabaa bilowga laga bilaabaa iyagan ka bilaabaynaa anaga idinka dhex tuseena Ciise Masiix bilowgiiba abuurdii dunida ayna ka dhex tuseena Ciise Masiix astaantii kitaabka quduuska wuxuu leeyahay Ciise Masiix laftigiisa oo hadlaya wuxuu leeyahay Yohana cutubka 5 aayad 39 wuxuu ku leeyahay qoriinka ayaad baadhaan waayo waxaad u maleynaysaan inaad nolosha weligeeda ahelaysaan waana iyaga kuwa ii marag furaaya qoraalka dhan markaa baartaan iyo akhrinta akhrinaysan bible-ka oo dhan kitaabka quduuska ah wuxuu ku saabsan yahay uu leeyahay aniga ugu saabsan yahay marka waa erigi ilaahda indhaha ku hayno marka asagoo jir soo wadana dhex imaaday waxyaabihii uu qaban lahaa baa looga sii sheekeynaa looga sii hadlayaa kitaabka bilowgiisii ilaa dhamaadkiisa marka taas hadalkiisii oo sida ayuu yiri waana erey ilaah anagana waxaan ka bilaabaynaa aadam iyo xaawo marka hore waxaan ka bilaabaynaa Shaaniya sida loo abuurayba sida ilaah wax walba uu abuuray aadam loo abuuray kadib xaawo loo abuuray kadib waxyaabaha sheekada si u daba socoto kulay waa isla wada gudgaleynaa laakiin waxaan ka bilaabaynaa abuuritaankan ka bilaabaynaa marka hore marka la abuurayo ayaga inaan ka bilaabana umaleynaya Shaaniya waarun ilaahay cirkii dhulka ereygiisu ku sameeyay waxaan idinku waaninaynaa idinkula talinay horta in akhristaan kitaabka dhan quduuska akhrisaan bilow iyo dhamaad marka bilowga waxa ku qoran ilaahay sidoo cirkii dhulka u sameeyay iyo xayawaanka dhan uu sameeyay inuu bini aadamkii wixii dhan markuu sameeyay uu ka bacdi uu maxay taayidan hadda noo akhrina waxa ku qoran bilowgii 26 waxa ku qoran ilaah wuxuu yiri aan nin inoo ka sameeyno arageeno oo isagu ha xukumeen kalluunka badda iyo haada hawada iyo xoolaha iyo dhulka oo dhan iyo waxa dhulka gurguurta oo dhan oo ilaah nin buu ka abuuray aragiisa ilaah aragiisa ayuu ka abuuray isaga lab iyo dhadig ayuu abuuray soo aadin xaw markuu abuuray ilaah markuu ugu horeysay wuxuu sameeyay meel oo qurux badan oo sida jannada u taqaaniin oo
waxaa la dhahaa maxay ahayd beerta Eden marka wuxuu ku sameeyay xayawaankii oo dhan uu sameeyay kow iyo cirkii dhulka markuu sameeyay xayawaankii uu sameeyay wax walba markuu sameeyay ayuu wuxuu yiri nin inoo eg aan sameeyno nin noo eg waxaa laga wadaa ma aha ilaahay inuu qof yahay oo qof u eg uu sameynayo ma aha laakiin waxaa laga wadaa siduu ilaahay noo maamulo oo annaga noo xukumo oo wax walba uu u sameynayo annagana dunidan wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay maamula oo xayawaankaas xukumo oo u taliya oo sameeyo oo magac u bixiya marka aadan xawaa la sameeyay waxaa la yiri maxay ahayd ilaahay wuxuu ka sameeyay aadan dhoobadu ka sameeyay uu sanka kaga afuufay ruuxdiisa ka bacdi markuu aadan ku afuufay hadana wuxuu yiri aan u sameeyno qof caawisa aan u sameeyno gabadha la sameeyay waxaan laga sameeyay feerti aadam saasa ku qoran kulay qisada da akhrisaan way dhartaa in akhristaan way wanaagsan tahay markuu sameeyay ilaahay aadam wuxuu u dhiibay maxay ahayd xiriirku ugu horeeyay kooba ilaahay waxa waaye wuxuu xiriir la lahaa aadan xawo ilaahay wuxuu noo sameeyay inuu xiriirna la yeesho xayawaanka anaga waa ka duwanahay waayo caqli aan qabnaa mid inoo eg markuu dhahay wax walba ayaan sameyn karnaa waxaan ilaahayna si caqli aan wax walba ku sameyno hore ugu sii socon karno oo waxna ku xukumi karno xayawaanka dhan inaan xukunno waxa adduunkan yaal ayaa loogu talagalay iyo in anaga ilaahay xiriir la lahaano oo ilaaha adeecno marka waxaan ka sii wadeynaa marka hadda aadam la abuuray waxa waaye habka ilaah uu u abuuray xaawo ayaan halkan nooga akhrinayaa aayadda rabbiga waxa kale ogaataan shaaniya waxaan ku daray aayaddii hadda soo akhrinaysay ilaah muuqaalkiisa ayuu ka sameeyay mid asaga u eg shaanina way sheegtay wayna sharaxday si fiican waxa waaye xagga fiiri garashada ilaah wax buu gartaa bini'aadamka inay wax gartaan xagga caqliga inay caqliga ay wax ku gartaan iyo wax samaynta inay wax sameeyaan iyo maartay waa habkaas laakiin ma aha annaga oo kaleeto ilaah inuu yahay qof sideena oo kaleeto u eg isaas ma aha laakiin waxaan idhaahnaa ilaah wuuna arkaa baan leenahay kasoo qaadashaani ilaah wuuna maqlaa baan leenahay ilaah wuu ifahmay wuuna garanayaa marka waxaan oo dhan waxa waaye habkaas oo kaleeto iyo ilaahay leeyahay anagan habkii ayuu inta horumarka aan gaarnaba bal fiiri adduunka hadarta maanta kaamirooyinka naga daawanaysan fiidiyoyada in meesha soo fariisan anagoo laba adduunka kala joogno bini'aadana sameeyay horumarka ay gaareen waa cirkaas la aaday la tagay oo la gaaray maxay ahayd wax walba dhulka inta u dhaxayso dhina quruxda sida laga dhigo waa arteen guryaha dheer western ka dhisan ilaa Afrika iyo meel walba korontada iyo maaragtay gaaska waxaas dadaas soo saaray dahabkan la sameeyay luulka la sameeyay wax walba adduunka kan horumarkan dhan iyo quruxdan iyo nalalkan iyo wax walba meeshan yaalo kii sameeyay ayaa ka sii wanaagsan waayo wuxuu waxa ilaahayga sameeyay ayaa ka sii cilmi badan oo sameeyay galaksiyasha iyo jannadii adduunka sameeyay laakiin annagana wuxuu sii garasho aan waxaas ku sameeyno saas uu leeyahay mid inoo eg waxa laga garashada inaan maxay tahay garasho leenahay oo wax aan ku qaban karno marka waxaan sii wadaa habkii xaawo ay ku imaatay ayaan nagu sheegaya sax akhri bilowgii 21 ilaa 25 oo rabbiga ilaaha uhna hurdo weyn buu ku riday ninkii kolkaasuu gamay kolkaasuu wuxuu ka bixiyay feedhiisii midood meesheediina hilib buu ku awday oo feedhii rabbiga ilaaha ahu ka bixiyay ninka ayuu naag ka sameeyay oo wuxuu hadiiba u keenay ninkiina wuxuu yiri tanu hadda waa laf ka mid ah lafahayga iyo hilib ka mid ah hilibkayga waxaa iyada loogu yeeri doonaa naag maxaa yeelay iyada waxaa laga soo saaray nin sidaa daraaddeed nin wuxuu ka soo tegayaa aabihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa oo waxayna noqon doonaan isku jid marka intaan hore aan isla fiirino oo rabbiga habka uu abuuray qof walbaba oo intana badan waa naqaanaa waxaan idhahnaa dumarka waxa laga abuuray feeraha nimanka laga abuuray feerta aadama laga abuuray marka waa sidaas habka u dhacday oo loo abuuray qof hadduusan aqoonin habkan ayaa ilaah uu sameeyay hurdo weyn ayaa lagu riday ninkii wuu gamay markaasaa feedhiisii baa laga soo bixiyay bal u fiirsada marka xagee ka imaatay xaawo waxay ka soo baxday feedhii jirkiisa waa aadam bay ka soo baxday jirkiisa ka soo baxday marka nimanka niman badanaa jira shaaniyo oo dumarka ama naagaha maaragtay aad u dhiba dila ama xumeeya waana waxaan leeyahay feedhiina ayaa laga soo gooyay aadam waa jirkiisii aadam markii feedhiis laga soo gooyay oo loo keenay oo la yiri tani waana wuxuu yiri waa mid aniga iga mid ah waa mid hadda shaaniyo waa aniga iga mid tahay marka hal xabaan isku noqonay أنا رأيك كسوتك إذا رأيك كسوتك لبدأ نبدأ بقى أسكون نقولني هذا سيدا إذا أي كتاب يا حل بناها سيدا سوى أي تهاي هذانا أنا جاي سوق قاضي هدينين أهان الله فيريو ننكي يدين وأنا جا مركا هذانا أنا جنا دمر كنا نما كنا أيد لك يبادين هذانا مركا أنا جنا واسود لنا أنا عايز اسكود يجيران هم ربابا اسكود يجن وحلا إن استقالة سنة ما أعرف اسلوب جوجنا وقت ولا بابا
marka saas ay ila tahay ها صح إلهنا محليه لبدودونا ويقاوناين ننكي ناكتيسا mana ay xishoonaynin fiir markaas iyadoo jannada la joogay ma jirin wax maxay ahayd dambi ah lama aqoon xumaan lama aqoon ceeb lama aqoon waxaas marka ma ay ka xishoonin ayuu qaawan xitaa isku ma jeedin inay xishoon inuu maxay ahayd qaawan yihiin in kaleeto laakiin haddaan akhrino bilowgii 2:16 waxaa ku qoran rabbiga ilaah ahuna wuxuu ninkii ku amray isagoo leh geed kasta oo beerta ku yaala waxbaad ka cuni kartaa beertan buuxdo ilaahay sameeyay waxbaad ka cuni kartaa laakiin geedka aqoonta iyo wanaaga iyo xumaanta waa inaadan wax ka cunin waayo maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa nacam xagga ruuxiyana u dhiman doontaa dadku waxay u maleeyaan geedka ducun in hore suntaha hore laga sii dhimana ma aha ilaahay baa amarkiisa jabinaysa amarkiisa jabisay ha ma aragteen mararka qaar dad dhahay ilmaha cunugooda caasi ku noqonaa dhahay ani adiga waa kala dhimanay waa iga dhimatay amal la iska dhahaya waayo waalidka wuxuu ku leeyahay waa ku caasiyowday waa iga dhimatay ku dhaw ku dayranaya adiga waa noo shaawili isaga wuu nool yahay laakiin waa kala dhimateen sidaas kale waa ilaahay wuxuu leeyahay hadii amarkayga aad jabisaan oo geedka idin dhahaa cunin cuntaan markaas kala ogaanaysa xumaantii wanaagga kala ogaanaysaan hadii qaawanaanta xitaa uma jeedin xitaa inay qalad tahay waxba uma arkaan waxay qalbigooda nadiif u ahaa sidii maxay ahayd ilaah uu ku sameeyay ahaa laakiin markii marka maxaa ku dhacay geedka saa cunaa la waa ku dhimanaysaa marka maxaa dhacay shiino sababta maxay tahay geedka cunaan ya waxa waaye shaani waa aayadaha intaan aqrino ka hor waa ilaah wuxuu yiri sidaas ayuu yiri hal sharci la sii shaani kaliya hal sharci geedkaas kaliya cunaan hal geed baa la yiri kaliya cunaan laakiin wax alla waxa kale oo aad doontaan free buu idin yahay sameeyna waxa la yiri sameeya marka ilaahna iyagu la hadlaayay fiir markuu hor ku sheegay nabi kale looma soo dirin aadam iyo xaawa dadka ugu horeeyay waa adduunka waa aabaha maxay tahay dadka inta nool bini aadanka dhan aabahood waa aadam waa aabaheen adduunka intaas joogto dhan dadka dhan isaga ka soo farcameen ama cadaan ah oo madow ah waxa doonta ah kulli ka imaadeen laakiin waxa dhacday cadow baa jiray markaas iyada ah cadowgaasi oo ah shaydaanka wuxuu kamid ahaa malaa'igaha jannada joogo oo ilaahay maxay tuubu ku caasiyay waayo kitaabka quduuska waxa ku qoran shiina Isaaya hadii la akhriyo 4:4 waxa ku qoran waxa shaydaanka ayaa qalbigiisa wuxuu kaga fikiraa wuxuu leeyahay waxaan kori doonaa daruuraha sare korkooda oo waxaan noqon doonaa sida ilaaha ugu sareeyo oo kale wuxuu rabay inuu noqdo ilaahayna lama qiyaami karo ilaahayna xitaa qalbigeena og yahay malaa'igtii caasisay wuu soo tuuray baa la yiri jannada ku soo tuuray shaydaanka marka la soo tuuro ugu horeysay waa markii la soo tuuray muxuu sameeynaa marka isaga waa ogtihiin waa ruux asalaftiisa lama arko shaydaanka anaga ma arkan jir anaga aan wadana bini aadam baan nahay asaga waa ruux anaga ma arki karno sida malaa'igaha oo kale marka meelihiisa isku joogay laakiin ogaada xorriyad baa la siiyay aadan iyo xaawo marka wixii dhacay iyo maartay shaydaankana sida uu soo dhaxgalay oo haddana waxyaabo isku bedeleen ay wax nooga aqrinayaa bilowgii 3 ilaa 5 haddaba abeesadii way ugu qiyaano badnayd bahal kasta oo duurka jooga oo rabbiga ilaaha uu sameeyay oo waxay naagtii ku tireen waxa way ku leedahay ilaah miyuu idinku yiri waa inaydan waxba ka cunin geed kasta oo beertan ku yaala naagtiina waxay ku tireen naagtiina abeesadii waxay ku tireen miraha geedaha beerta waanu cuni karnaa laakiin samiraha geedka beerta dhexdeeda ku yaala ilaah wuxuu nagu yiri waa inaydan waxba ka cunin ama eedan taaban yeedan dhimanina abeesadii waxay naagtii ku tiri ma dhiman doontaan waayo ilaah wuxuu og yahay in maalinta aad cuntaan ay indhihiinu furmi doonaan oo aad noqon doontaan sida ilaah oo kale idinkoo kala garanayo wanaagga iyo xumaanta oo markii naagtii aragtay in geedkii cunto ku wanaagsan yahay oo indhaha u roon yahay oo uu yahay geed aqli lagu yeesho ayay miro ka qaadatay oo cuntay ninkeedii la joogana wax bay ka siisay oo isagiina wuu cunay fiir shaydaanka qorta intuu qabto muuna dhihi ilaa wala cun afka looma gelin geedka laakiin wada hadal ayaa yimid hadalka ilaahay iyo hadalka shaydaanka waa anaga waxaan naga rabaa inaan maqalno hadalka ilaahay ma hadalka shaydaanka ilaahay wuxuu yiri geedkaas cun shaydaankan muxuu yiri ilaahay masaas kugu yiri wuu u qaloocinaya kugu dhihin amal kugu dhihin saas adaa u malaysa amal waa moqto masaas kugu yiri ma ilaahay basaas kugu yiri maya uu yiri tircun sida ilaahay kala noqonaysa nacam in wax wanaagsan laga celinay amal ay ka dhigtay waa sida adoo ilmo yar waxa sida cunti waa ku dhimanaysa ama ku jiranaysa oo hadhow qof kale intuu imaado yiraahdo waxaas macna ma leh hooyada warkii iska daaday kugu sasabay iska cun markii iyada shaydaanku wuu sasabtay markuu sabtan way cuneen markay cuneen maxay ogaadeen
waxay ogaadeen in ay maaragtay qaawan yihiin indhihi u furmay inay qaawan yihiin arkeen way ka qoomameen way murugoodeen way yaabeen waxay arkeen ceeb iyagoo jirkoodii qaawan iyagoo xiriirkii Ilaahay go'ay Ilaahay waa quduus dambi agtiisa ma taga dambiga ugu horeeyay oo qof bin aadan gal ay ahayd geedkas kaliya cunay geedka la cunay geedka dul cunay xiriirkii Ilaahay iyaga u dhaxay ayaa jabay cabsi waxa ku soo degatay maxay Ilaahay ay ka qabaan isleeyeen bas waa hadartaan qalada gashay qof kasta ilmaha yarka xitaa duu qalad galashin uu isog yahay inuu qaldamo wax qarsana uu dhuumana wax walba uu qarina wax isku dayna inaan qarin iyaga way cabsadeen markaas waxay isku dayeen inay maxay ahayd isdaboolaan ya shaaniyo marka ay dambaabeen oo ay ogaadeen inay dambaabeen sax bilowgii cutubka 3 aayad 7 waxa la oo labadoodii indhoodii way furmeen oo waxay garteen inay qaawan yihiin waxayna isku tosheen caleemo berde oo ay gunti ka samaystaan sax waxay rabaan inay daboolaan ceebtooda fiir ma arkin qof waduu wax daadiyo kala dambaabo kala qalad galo bal wax yar daa qalad gashixta marti in qaladkaaga la arko fiir dadkan hadda muqaadaraadka qabo ma jecleen lagu arko muqaadaraadkaas ay sameeyaan ha balwada leeyihiin balwada waxay jecel way inkaraan inta badan way inkaraan waxa ugu horeeyo oo meel markii la geeyo meelaha balwada looga nadiifiyo ahna waxa waay in qirta la leeyahay dambigiina qirta sheegay ina balwada leeyihiin waxa ahay dhibkaas ay haystaan markaas kadib ayaa lagu caawinaya iyaga inta dhilaan dhibkaas aan sameeynay Ilaahay waan qaldanay waxay isku dayeen inay daboolaan waxay isku dayeen maxay ahayd inay maaragtay caleemo isku daboolaan caleen ceeb ma ka qarinaysa caleen way qalaleysa way bixaysaa caleenta geedka daa kasoo goysay saacad kadib maalin kadib way dhimatay way baaba'ayaan inay wax fiican daboolaan si ay u qariyaan ceebtoodii wax fiican samee oo ku daboolaysan waa sida dadka qaar mararka qaar ay hadartaan leeyihiin dambi aan galna okay wax fiican aan sameyn si dambiga loo dhaqo loo daboolo waa sida caleentii uba isku daboolaysa caleentii way qalaleysa markii Ilaahay qorsho lahaa kullee Ilaahayna waxaan markii ay arkeen dadkii ilmihiisa xitaa markii caasiyoobeen ee qaladkan sameeyeen wali kama harin wali wuxuu rabaa inuu xiriirka soo celiyo wali wuxuu rabaa ka dab ordaya oo u yeeraya oo jecel yahay marka 3 noo akhrishiina 15 bilowgii 3:15 oo colaad baan inta dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta iyo farcankaaga iyo farcankeeda oo madaxaagu burburin doona adiguna ciribtiisa burburin doonta waxa waay markii qalad baa imaad meeshan dadkii way dambaabeen آدم يحاول دنبالين شيطان كينا وكل جرا أصلا قلت بوسمي إله هو حاكم شانه صح وحير أصلا حريت بوسية وحير جيت كان عننا دنبي كان هجلنا هذا دنباودا أنا إيدك وكل مننا ويك مركا أيجي أجو عن صدي أو حريت دي كوك جاري ساس تبدأنا ويجران هذا أو ما أعرف قلادات سمينا أي حريت دي قلادات كسمين marka ayaga laftooda qalaad ismaan ilaah in ku dhalaaciyaan ma waayo xorriyadii la siiyay ay si qalad ay u isticmaaleen marka qof walba oo qalad galo wuxuu isku dayaa qaladkii inuu daboolo sida xaawi aadan u daboolayeen marka qaladna ma aha wax wanaagsan ilaahna ma jecla dadka inay qaldamaan haddana qofkii qaldama ilaah waa caadil waxa waa xaakim waa inuu xukunkii marsiya waa lagu sii digay marka hore waxa la yiri waxaan sameeynin hadda waxaan sameeyay waxaan kugu dhacayo واجي شرعية إجرام شرعي وباجر شانه ماشان إلا كهر وأنتو سن عيسى مسيح إيمانا هدونا كشكين دونا مركو عيسى مسيح إماده وماشان كده حركة دونا شاكد رفتي عيسى مسيح وحين قلنا تا شاكة كلا لكن هذا نمعكم هو الجيران كان وحكوز جيران شرعي ويحل شرعي ولا شرعي جبيان مركا عدنا هذا شرعي جبيسد وحوا شرعي وقبنا كله أيجنا مركا إله وحولي حكم كان السينايو وحول نقد السيدان علاد بين الأحد دونا بيجري adiga iyo naagta waninka iyo naagta wala dhex imaanay iyo farcankaaga iyo farcankeeda oo madaxaagu burburin doona waa shaydaanka madaxaagu burburin doona adiguna ciribtiisa burburin doonta marka shaydaanka laga adkaan doona shaydaankan oo sababtan keenay waa laga adkaan doona waayo aadam oo jir bini aadam wata ayaa dunidan wuxuu keenay dambiga hadda dambigan waa inuu qaada aadam kale oo jir kale wato kale bini aadam inuu qaata sida aawadeeda ayaa ilaah marka dambe uu ku iman doona habka ciise masiix kadibna ma artay dambiyana hadda calaamada waxa qorshaha uu ilaah wato weeyaan ilaah wuxuu rabaa in uu maartay dadkiisa dib u soo ceshto qaladkii aan galnay uu ka xun yahay laakiin haddana waa in qaladkii aan galnay kuma soo noqon karno waa in la bixiyaa waayo wuxuu yiri hadaa cuntaan waa la dhimanaya dhimashada waxay ahayd in aan kala dhimano anaga iyo ilaahay laakiin isla markiiba qorshaha ayuu rabbiga dejiyay uu leeyahay maxay ahayd فرعنكيسي فرعنكاغا نعم أبيسدي أنك نعم شيطانكي أنك وحن سكو هننا ولدين إلا أو كإماد عيسى مسيح أو مدحة أو استاجدونه ومركز مركي آذن يحاول ماشي يقدم بابين أيو إله وحو كان نمعدي سكان إسلا مركبة إسوا قرشيه سي ديارنا معيد مسيح إنه مر إيمان دونه
oo uu dadkan dhan maaragtay uu soo celin doono oo qaladka galay oo kala fogaashii ilaah lagu kala fogaad in la soo celin doono marka haddaan aqriyo Roman 6:23 waxaa ku qoran waayo mushaarada dembigu waa dhimasho laakiin hadiyada ilaahay waa nolosha weligeeda ee laga helo rabbigeena Ciise Masiix mushaarada dembiga qaladka ay galaan dadkaas wuxuu ahaa dhimasho qaladka maalin walba galayna waxa waa dhimasho haddaan Masiix diidno qaladkeena dembiga ugu weyn oo ku jirno waxa waa inaan dhimano oo ilaahay anaga kala dhimano laakiin ilaahay wuxuu yiri waxa maxay tahay hadiyada aan siinayo waxa laga helaa rabbi Ciise Masiix waxana waa nolosha weligeed ah waa hadiyad ilaahay ka imaat ma aha amal aan shaqaysanay oo aan isku dadabool karno ma aha marka ya shani waxa rabaa inaan markay dambaabeen oo isku dayaan shani inay ay maartay bardihii caleentiisa isku daboolaan ilaah naxariistiisii wili kama qoosanin kama tagin ma dhehen iska sii baxa wuxuu u sameeyay waxaan aqrinayaa bilowgii 3:22 rabbiga ilaaha oona wuxuu aadan iyo naagtiisii u sameeyay dhar harag ah wuuna u xiray iyagii meeshaas waxaan ka garanaynaa sacrifice-kii ugu horeeyay ama dhiigii ugu horeeyay ama qurbaantii ama dhiig bixintii ugu horeysay ilaah inuu sameeyay si loo daboolo dambigii aadam iyo xaawo ceebtoodii in la asturo waayo maqaar marka isku daboolaan maqaarka wax badan oo haynaya wuu daboolnaanaya laakiin maradoodii waxaan dhihi lahaa caleenta isku daboolayaan shaaniye daqiiqada ku dhacaysa wali waa qaawiyihiin marka shaqo walba adiga aad qabatid wax ay ku tarayso ma laha laakiin hawsha wanaagsan ilaah oo kugu qabtay isku talaabada ayaa ka weyn taasaa ku daboolaysa oo ku dhameystiraysa marka ilaah xayawaankii ugu horeeyay asaaqalay waayo waxa la yiri dhiig ugu horeeyay dambiga abaalmarintiisu waa dhimasho waa in dhiig loo daadiyo sax dhiigii ilaaha u daadiyay xayawaan baa loo qalay waxa waa hagarkii maxaa la yiraahdaa haragii baa laga soo qaaday markaas ayagii lagu daboolay marka ilaah saas oo ceebtan u asturaa mar walba anagu dambi galnayna waa saas oo dambiyadana u qarnaya ilaah صح dad baa hadda waxa laga yaabaa inay leeyihiin anaga waa dambaabna laakiin amalkeen fiicana ka badan amal fiicana sameeynayna jannada anaga tagayno anaga isgeeyno waa sida caleentaas oo kale oo qalashay oo dhacday oo kale amalkaaga ugu wanaagsan sida caleentaas waay kitaabkan waxa ku qoran maxay dadka bini'aadanka amaladooda ugu wanaagsan marka ilaah hoos dhigtay waxay la mid tahay maro wasaq leh maro wasaq leh ayay la mid tahay dhiig wasaq leh ku yaal ay la mid tahay laakiin hadda noo akhriyo Roman 5:22 waxa ku qoran dhimashada waxa laga helay aadam ayaa noo keenay dhimashada waay isaga ayaa dambiga ugu horeeyay oo ilaa hadda adduunka u dhimanaya dadkii laakiin nolosha weligeed ah waxa laga helay nolosha maxaa la dhahay noloshana Ciise Masiix hadaba dambiga sida nin kaliya dunida ugu soo galay dhimashaduna dambiga ugu timid sidaas dhimashadii u qaaday dadka oo dhan waayo waa la wada dambaabay laakiin haddaan Masiix aqbalanana kulli waxaan soo noqonaynaa jannada waayo ilaah waa quduus si aan quduus ku noqono oo nolosha weligeed u helno waxa loo baahan yahay Ciise Masiix waa Ciise Masiix in loo imaado waayo isaga waxa laga helaa nolosha weligeed ilaahayna qorshaha Soomaalidaas gaaray wuxuu yiri dadkay waa kan way dambaabeen laakiin jacayl u qabo wuu daboolay maradaas ku daboolay oo dhiigii u daadiyay isagoo tusaale uga sii dhigaya maalin ayaa dhiigii Ciise Masiix erayga dhiigayga idin daadan doon anaa idin imaanayo anaa idin soo badbaadina waayo idinkii wax waa maqli weyseen qof kasta hooyo aabba maanta dhageysanayna daawanaya haddii ilmihiisa ceel ku dhaca miyuu uga tagaya wuu isku tuuraya markaasuu soo qabanaya rabbiga wuxuu ballan qaaday wuxuu leeyahay dhimashada waxaa keena aadam laakiin anaa keenaa nolosha anaa keenaa nolosha marbaa idin imaanaya badbaadada anaa idin imaanaya Ciise Masiix waayo waxa waaye ereyga ilaaha nool oo loogu yeero Emmanuel oo macnaheedu tahay ilaah baa nala jooga ilaah jir soo waday ayaa marka imaan doono ayaa la leeyahay qorshuu sii sheegaya ha qalbi jabin wali waa idin jeclahay waan idin badbaadin doonaa uu leeyahay rabbiga marka imaashaha Ciise Masiix oo imaanaya dunida waa hadiyada ilaah oo ma artay ballanqaadkii iyo rabitaankiisii balaankiisii ama qorshihiisii uu ku oofinayo waayo aadam wuu dambaabay sax waa ilaah agtiisana ku soo fogaaday marka dunidana dambi oo keenay aadam dambigaasna wuu jira anaga dhan bini aadanana kulligana waa dambaabna waxay tahay waxaan ka helnay dhaxalka dambiga aadam baan ka soo helnay xiriirkeena yaab jababa anaga ilaah farcankii aadam baan nahay aadam dhiigiisii aan wadanaa aadam DNA-giisaan wadanaa marka qof walba bini aadan ah wuu dambaabaa dambigu ku dhashay keenay marka dambigan inaan wadano waa jirka intaan ku dhex jirno waayo jirkan wuxuu ka imaada aadam laakiin ilaah wuxuu noogu talagalay haddana in xiriirkii aadam iyo asaga ay lahayn in dib uu soo celiyo wuxuu noo soo galay marka oo sameeyay qorshihii inuu ku imaado isagoo jir bini aadan wato si dhiiga oo anaga dhiigiisii uu noogu daadiyo marka waa sawirkii waxa imaanaya marka Ciise Masiix oo ilaah uu noo soo qorsheeyay oo bini aadanka marka hadiyad loogu dhigayo oo leeyahay kii walba isaga rumaysto ma lumi doono anuu ila joogaya weligiisba marka
waxa waaye intaan taas sii gelin ka hor waxaan aqrinayaa Roman cutubka 3 aayad 24-25 waxay leedahay iyagoo hadiyad ahaan xaq looga dhigaayo nimcada xagga madax furashada ciise masiix ku furtay kan ilaah u soo bixiyay inuu dhiigiisa kafaara gud ku noqdo xagga rumaysadka la rumaystay dhiigiisa aawadiis inuu xaqnimadiisa ku muujiyo dambi dhaafka uu dambiyadii hore loo sameeyay ku dhaafayo samarkii ilaah كان إله أصوب بحي إنه ديجي كفار قد كنقض عيسى مسيح كفار قد أهانه ويمت إلهي وحور بحرير كين هور إنه سوعلي قرشوه هاي وحيد مركو رسم آذن حاو مالك استو حل ولي عدك إلهي مقل جيرين وأرك جيرين ولسعن جيرين صاحبي هاين المي أبودي هاين واسكو حرناين لكن حريرك واحد جري ودم بيجي إقلان لكن السلام مركز أيوة بلغ هذا إله وحول هاي كان إله أصوب بحيي إنه ديجس كفار قد ونقضه كفار قد نقضه معركة وحنا وحق الرميسة ديج عيسى مسيح واي أو نقد أنت إله مركز قر شقة جارة وحول هاي قبض أوليه مو هن آذن يحاول ما دل دونتان أيا شدانك مدحك استاجدون وحالي قبض ويل كي دل دونت يا مدح أبي استاجدون السجن عربته كقنين دونا أنا قون أريد الشيطان كوه ربادتك دن إنه قنينه ربا لقطه نجا قنينا لكن السجن مدح لو استاجي ربي جا كقول عيسى المسيح أيا إلهي قرشي سيوبها وقت آذن يحاول أيو بلن قاعد إنه كيناي مدح فرشة نو كينا عيسى المسيح مركزا كتاب قدوس كربي وحكوا لي هاي إله قبر بكرة ورثنا وحيد له أنت ويل كاس لا يسوي قبل اللي سوى شيء هذا في دمر كهيد وحيد ويل والله بحين دونا إيمانويل وإله بيجوج كاسو كأكن دونا شيطان مركا مدح ويست يا شاني إله جعلك ونوقب مركا يا وحى وسميه ويل كاس ومدح ويستاج دونا وأرجع إله وجر نقض ونرح ماذا يا يوحنا عتوك سدح اللي حتى من هذا هاي إله أنتوا الدنيا جعل وقب أيوسي ويل كيس كلية أو شيء إن متكستو إستجر روميستا أوصل لومن لكن سؤال هذا نلوش ولي جدا أنا آدم إله ويكسر كلتين آدم وكسر رومن يحاول يكسر رومن إله ويكسر رومن لكن إله قرشيه ولها مركو إمادة أو عيسى مسيح إمادة جعل وقب أودد أو ويلكي مركو إمادة أو شيطانكم مدح ويستاجي كي والبور روميستا ولي ملو ماي مركا وحقول هان دونا نلوش ولجيدا نلوش آدم إله إسلا لهاين اللي جوجن حرك في عن لها تاسو لهانا يا إلا ولجيد مركا ماشي عيسى مسيح شاني ماشي آدم يحاول كإمادن برتي قرحنت أو لوجس سطور هل دنبي ما أنت أنا قو طبعا دنبي بقول دنبي وذن وما نقنكر عمل كنا وناكسن واسيد على أنت سقل الشيء دول كل عادي يا مرض ديجله لكن حبها هذه دي إلى ديج عيسى مسيح إنه هو سقلنا عيسى مسيح إنه صدر ولا ليالو أقبله قلبي كرمسته أفكنا كقرته سأوشان نلش ولجيد قرشوا إلى كسد وقت آدم يحاول إلا حد أو دنبنته مسيحة كقولست شدانك مدح وجستاجي وحويان سدو كوع لها حرير كيني ونوع لها مركا بدبادة توبت كينا آمين ما هتنس يعني رميس هذا لو هي رميس عيسى مسيح إله دب أقول لابتان أو إلهنا أقول جوكتان مركا يا نورش ولد عيشان ربي قام هلا أنت نكسو جبيننا قيبتين أقول سي قصيدين كأم الشيكوين كنبيدا وأن قبل لون آدم يحاو أنا سيب ودي دونا وما سنتين داوشة أنا داوتين وحنا عدسنا إناد شير كريستان فيديو جان وحنا عدسنا إناد سبسكرايب كسمايستان يوتيوب كينا جيتك جندا يوتيوب كينا شاني إيشينا جابو وأنا كم سنتين مرة بوسانا ولا سعتان ربي قاعد بركة وأنا دين جعلنا تسوق هذا وحن شاني كعدسنا يا إن دعنا وسوق كويس يا ربي إلهي ما هذا كركاج ها حتى عشر كان نبيذ أو قصين كان نبيذ عن بلونه أو كان احتوسنا بلنقات كان بلوجي إلا دماتك أديات مسيح درتي سوحل بأسميني سي ربيو وحن كابرينا ولا لها كوان كوان إن توبت كانان إن كوجرتان أديك إن تاي جيتك كليو ديجا أنكو بدبادنا الشيطان كصوتان ربيو أمد هذا بدباد ربيو كو مسيحين تن ربيو كو كوري أو كدك مارتكو إيمان كودي ربيو مرول بلصعد أو كودجن ربيو بركة هذا كبوحي ولا لها ما نجعلنها صاحبنا مرول بنلصعد بدباد أمد هذا ربيو أنت سمحن كوي دي سنة كبرينا مقع ربيجان إيه بدبادين عيسى مسيح آمين وما هتسنتين نبدي كركين هاتو نبدي لما نبدي